بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal waa fadhigeennii afraad ee aan uga hadlaynay taariikh nololeedkii asxaabtii nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo wixii duruuse aan ka faa'iideyno. waxaynu hore uga soo hadalnay laba saxaabi oo runtii aada muhiim u ahaa, abubakar iyo cumar. xalqadan afraad waxaan uga hadli doonaa cuthmaan bin cafaan radia allahu canhu wa ardaah. saan soo sheegnayna walaalayaal, saxaabada inay fadli lahaayeen, khayr lahaayeen, waxayna uga filnaa inay nebiga la noolaayeen calayhi salaatu wassalaam, inuu qur-aanku ammaanay. laakiin waxaan u sheegaynaa inagu inuu duruus ka faa'iidno, weliba qof kasta oo naga mid ah, hadduu yahay qof meel mas-uulka ah, kasoo bilo madaxweyne qof mas-uulka ah, shirkad qof mas-uulka ah, masaajid qof mas-uulka ah, waxay tusaale u ahaayeen qof walba oo saxaabo oo ummadda nabi maxamed ka mid ah calayhi salaatu wassalaam inay uga daydaan. maxaa yeelay waxay kulansadeen waxyaalo aysan kulansan cid kale, gaar ahaan afartan nin ee ugu horeeya ee saxaabada nebiga, oo labana nebiga gabdhihiisa qabeen, labana isaga uu ka qabay calayhi salaatu wassalaam, inay nebigana noolaayeen, inay ahlu janno ahaayeen. wax badan baa ku jira. cuthmaan bin cafaan radia allahu canhu wa ardaah, saxaabigaas wuxuu dhashay caamulfiil sanadkii la odhan jiray ee macruufka ahaa siirada nebiga 2 sano ka hor. wuxuuna ku jiray dadkii ku soo islaamay gacanta abubakar radia allahu canhu wa ardaah. wuxuu ku jiray raggii ugu horeeyey ee soo islaama. wuxuu ku jiray 10kii nin ee nebigu uu tiriyey calayhi salaatu wassalaam inay ahlu janno yihiin. wuxuu guursaday 2 gabdhood oo nebigu uu dhalay calayhi salaatu wassalaam. marka hore ruquyuu guursaday, way ka dhimatay. kabacdina wuxuu guursaday umu kalhuum oo walaasheed ahayd. walidaalika waxaa la odhan jiray din nuurayn, ninkii 2 nuur u saaxiibka ahaa. waxay culimmadu leeyihiin lama yaqaano ama ma aysan dhicin qof guursaday 2 gabdhood oo nebi uu dhalay ilaa cuthmaan mooyaane. xitaa nebiyaashii ka horreeyey, yacni fadliga uu lahaa cuthmaan bay tusinaysaa radia allahu canhu wa ardaah. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan maalin maalmaha ka mid ah inuu u soo galay gabadhiisa oo madaxa u dhaqaysa ama u maydhaysa cuthmaan bin cafaan. markaasu wuxuu ku yidhi, gabadhaydiyey hagaaji oo si fiican u hagaaji abi cabdillaahi, maxaa yeelay waa ninka iigu ekaanta badan asxaabteeda xagga akhlaaqda. nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiiska dabraani maa warinaya, rijaashiisuna waa hiqaad. wuxuu ku yidhi hagaaji, maxaa yeelay waa ninka iigu shabiha ama igu ekaanta badan saxaabada nebiga xagga akhlaaqda marka la yidhaahdo calayhi salaatu wassalaam. waxaa nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam in uu maalin maalmaha ka mid ah isagoo ay qaawan yihiin lugihiisu jilbihiisu uu cuthmaan u soo galay, oo nebigu markaa calayhi salaatu wassalaam uu sii daayey, oo uu maaragtay marada sii daayey. markaase waxay ku tiri caaisha, rasuulka ilaahayow waxaa kuu soo galay abubakar iyo cumar oo marada ma aadan sii dayn. markii laakiin uu kuu soo galay abubakar waa sii daysay. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam, miyaana ka xishoonayn nin ay ka xishooto malaa'igta ilaahay. yacni nabiyuna ilaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam baa wuxuu leeyahay miyaana ka xishoonayn nin ay ka xishooto malaa'igtii ilaahay subxaana wa tacaala. waxaa ka mid ah nebigu inuu ku yidhi abubakar radia allahu canhu, jannaha loogu bishaareeyo iyadoo ay dhibaato ku dhici doonto, musiiba ku dhici doonta oo in la dili doona buu sii sheegay calayhi salaatu wassalaam. maalin maalmaha ka mid ah nebigu wuxuu koray buurta uxud, isagii abubakar iyo cuthmaan radia allahu canhu. markaasaa buurtii xoogaa gilgilatay. markaasaa nebigu wuxuu alayhi wassalaam, uxudow deganaansho waxaad ogaataa waxaa kor saaran uun waa nebi iyo sadiiq iyo 2 shahiid ba ku kor saaran. oo 2daa shahiid nebigu wuxuu ka waday marka cumar iyo cuthmaan radia allahu canhu arda. xadiiska bukhaari baa warinaya. muslimiintu markay aada ugu baahdeen biyo macaan inay helaan magaalada madiina, oo aad waliba baahi loogu qabay, baa nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu soo jeediyey inuu dadka u soo bandhigo yaa noo qodaya ceel walahul janna, oo janno iska leh. ceel yaa noo qodaya, xufru ruuma yaa noo qodaya. markaasaa waxaa qoday
cuthmaan radia allahu canhu waardaah xadiiska bukhaari baa warinaya taqriiban waa markii saddexaad ama afraad ee nebigu uu ugu bishaareeyo janno abubakr radia allahu canhu waardaah waxaa ka mida nebiga inuu codsaday maalin yaa noo iibinaya reer hebel booska ku yaala ay leeyihiin si aan masaajidka ugu kabno oo masaajidka aan ugu weyneyno oo janno ilaahay siiya cusmaan bin cafaan radia allahu canhu ayaa wuxuu ka iibiyey xoolihiisii xadiiskana bukhaari baa warinaya raxmat ullaahi caleyh waxaa ka mida cuthmaan fadaa'ishiisa dagaalkii la odhan jiray jeish ulcusra oo tabuug la aadi jiray meel dagaal fog ahaa baahi badan ay jirtay nebiga wuxuu u keenay xoolo aad u fara badan buu cuthmaan keenay radia allahu canhu waardaah markaasaa nebigu intuu ku farxay oo xoolihii gacantiisa ku gedgediyey buu wuxuu yidhi cuthmaan wax dambe oo dhibaya ma jiro camalkiisa maanta ka bacdi yacni intaasoo dhan walaal waxay tilmaamayaan in abubakr fadliga uu lahaa radia allahu canhu waardaah waxaa kaloo ka sugan cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay xilligii abubakar baa waxaa dhacday abaar aad u xun baa dhacday oo dadku ay gaajoodeen oo ay rafaadeen dadkii markay dadku rafaadeen baa abubakar loo sheegay radia allahu canhu waardaah markaasaa abubakar wuxuu ku yidhi in sha allahu tacaala berri laga bilaabo waa laydinka faydi doonaa dhibtan iyo abaartan kabacdina waxaa yimi xoolo uu lahaa cuthmaan bin cafaan xoolihii baa cuthmaan marka suuqa soo dhigay raggii tujaartaha baa u tegey in ay xoolaha ka iibsadaan dabeedna wuxuu weydiiyey maxaa faa'iido ii saaraysaan waxaan kuu saarnaa intaas ka badan baan ku haystaa tujaarta way yaabeen waxay yidhahdeen cuthmaanow reer madiina raggii ugu xoolaha badnaa waa annagaana kaa qaadan lahayn yaa kaloo kugu siinaya markaasuu yidhi ilaah baa wuxuu ii gaadhay 7 laab iyo ka badan xoolahayga waxaan ku sadaqaystay muslimiinta cuthmaan radia allahu canhu waardaah waxaa la wariyaa in jimco kasta uu qof xoreyn jiray jimco kasta oo la gaadho inuu qof xoreyn jiray radia allahu canhu waardaah cali bin abi daalib waxa uu leeyahay radia allahu canhu waardaah cuthmaan wuxuu ahaa ka noogu xidhiidhiska badan xagga qaraabada yacni subxaana milkulquduus dhinaca walbood ka fiiris wuu buuxiyey sadaqadii buu buuxiyey nebiga inuu ka farxiyey wuu buuxiyey calayhi salaatu wasalaam muslimiintii inuu anfaco xoolihiisa ku anfaco buuxiyey addoommo inuu xoreeyuu buuxiyey qaraabada inuu xidhiidhiyuu buuxiyey yacni waxaad arkaysaa ayuha alikhwa markaan ka sheekaynayno siiradooda tusaale inoo tahay innaga inaan kaga dayanno waxaa laga yaabaa innaga qof ka midii inuu wax ku fiican yahay sadaqa inuu ku fiican yahay oo kale salaad ku fiican yahay laakiin ardayda nebigu uu tababaray calayhi salaatu wasalaam dhinaca walba waxay ku ahaayeen qofka ugu horeeya marka wuxuu leeyahay cali abi daalib waxa uu leeyahay radi allahu canhu waardaah xagga qaraaba xidhiiriska wuxuu ahaa ninka noogu fiican caaisha waxay leedahay radia allahu canhu markii la dilay cuthmaan baa waxay tidhi qataluuhu wa inahu la awsaluhum lirixm wa atqaahum lirabbi waxay dileen isagoo ahaa ninka ugu xidhiiriska badan xagga qaraabada uguna cabsida badan xagga ilaahay subxaana wa tacaala yacni labadii dhinacba way kulmiyeen ilaahay oo kula macaamileen macaamilo fiican oo wanaagsan iyo dadkii oo kula macaamileen macaamilo fiican oo wanaagsan labadaba waa ay kulmiyeen cuthmaan bin cafaan radia allahu canhu waardaah waxaa la wariyaa inuu habeenkii soo kici jiray oo tukan jiray gurigiisa dad badan baa joogay shaqaalaa joogay xaas baa joogay caruur baa joogtay hal qofna muusan toosin jirin ilaa qof soo jeeda mooyaane haddii qof soo jeeda wuxuu odhan jiray waysada ii keen haddii uusan soo jeedinna cuthmaan radia allahu canhu waardaah isaga ayaa wuxuu ahaa mid hawshiisa qabsada bal waxaa laga wariyaa cuthmaan nin aad u soom badan sanadka oo dhan sooma oo habeenkii oo dhan taagan waatuu alle uu leeyahay aman huwa qaanitun ana alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata ilahay wuxuu ka sheekaynayaa qof habeenkii rukuucsan oo sujuudsan oo aakhiro ilaah rajayn haddana baqaya cuthmaan bin cafaan baa sifooyinkaa lahaa ayaa la yidhaahdaa dagaalkii beder cuthmaan radia allahu canhu waardaah kama uusan qaybgelin sababtuna waxay ahayd xaaskiisa xanuunsanaysay nebigana calayhi salaatu wassalaam wuxuu amray inuu iyada baxnaaniyo oo caafimaadkeeda iyo xanuunkeeda uu ka warhayo ajarkii raggii ka qaybgalay saxaabada dagaalkana wuu lahaa
xoolihii qaniimadii la helayna waxbaa laga siiyey. cabdiraxmaan bin cuthmaan baa waxa uu leeyahay maalin baan waxaan go'aansaday in aan caawa ku tukado maqaam ibraahim, inaan meeshaa cidi iga hormarin oo caawa aan meeshaa ku tukado baan aaday buu yidhi. anoo meeshii ku taagan oo tukanaya baa waxaa dhabarka iga taabatay, qof gacantiis baa dhabarka iga taabatay. waan fiiriyey mita waa cuthmaan bin cafaan oo markaa amiirulmu'miniin ahaa. markaasuu wuxuu igu yidhi iiga durug meesha aan ku tukada wuxuu yidhi cuthmaan bin cafaan wuxuu bilaabay inuu tukado ilaa waagu uu ka baryey isagoo hal ragco ku tukanaya oo ku celcelinaya qur-aanka ku celcelinaya. yacni cuthmaan radiallahu canhu ardaah amiirulmu'miniin buu ahaa, ahli janna loogu bishaareeyey, nebigaa sadaq uu ahaa calayhi salaatu wassalaam, xoolihii muslimiintu sadaqaystay. haddana intaasoo dhan umay diidin habeenkii inuu soo jeedo tukado, bal caan wuxuu ku ahaa qur-aanka radiallahu canhu ardaah. marka habeenkii oo dhan wuxuu ku tukan jiray qur-aanka ilaahay. bal waxaa laga wariyaa cuthmaan radiallahu canhu ardaah inay soo martay hal ragaco qur-aanka inuu ku dhameeyey, qur-aan kaamilka ahaa. innaga maanta marka aynu fiirino dadka mas-uuliyiinta ah, ama madaxweyneyaal ha ahaadaan, ama wasiirro ha ahaadaan, ama xildhibaan ha ahaado, ama shirkada ha haysto, ama hadduu rabo masaajid mas-uul ha ka ahaado, ama sheikh, yaa maanta sifadan iska leh inuu maamulna yahay haddana ilaahay ka cabsanayo oo habeenkii inuu qur-aan ku tukanayo. bal imaamu nawowi wuxuu leeyahay radiallahu canhu wa ardaah dadka la tiriyo inay qur-aanka ku dhammeeyeen hal khatmo oo maalin iyo habeena waxaa ka mid ahaa cuthmaan bin cafaan iyo tamiim daari iyo saciid ibn jubayr iyo mujaahid iyo shaafici iyo ragga yacni maalin keliya ku dhammayn jiray qur-aanka. yani waxay ku tusinaysaa marka ayuha alikhwa, saxaabadu iyagoo madax ahaa, iyagoo tujaar ahaa, haddana waxay u noolaayeen xiriir ay ilaahay la lahaayeen subxaanahu wa tacaala. waana ta maanta inagu aynaan kaga daynaan u baahannahay. haddaad mas-uul noqoto iyo haddaadan mas-uul ahayn, haddii meel laguu dhiibo, haddaad magaca leedahay, waa inay kaa muuqataa ku xidhnaanta ilaahay aad ku xidhan tahay subxaanahu wa tacaala iyo saad ilaahay ugu dhowdahay. cuthmaan bin cafaan radiallahu canhu wa ardaa hadal aad u cajiib badan waxa uu leeyahay haddii quluubteennu daahir ay ahaan lahayd oo nadiif ay ahaan lahayd kama aynaan dheragnayn kitaabka ilaahay iyo qur-aanka ilaahay. yacni mar kasta waxaan u baahnaan lahayn qur-aanka akhriskiisa iyo kutadaburkiisa iyo qiimayntiisa iyo kutukashadiisa iyo ixtiraamkiisa. laakiin waa goorma? waa haddii quluubteennu daahir iyo nadiif ahaan lahayd. yacni wuxuu inoo sheegaya cuthmaan radiallahu canhu wa ardaah qof kastoo qalbigiisu daahir noqdo waxaa ku badanaya jacaylka qur-aanka iyo qur-aanka akhriskiisa iyo qur-aanka kutadaburkiisa iyo qur-aanka ku dhaqankiisa iyo qur-aanka qiimaysiintiisa. qofka xambaarsan iyo qofka sheegaya inta way ku weynaanayaan. bal wuxuu odhan jiray cuthmaan radiallahu canhu wa ardaah waxaan karaahiyeysanayaa in ay ii timaado maalin aana kitaabka ilaahay fiirin subxaanahu wa tacaala. yacni kitaabka ilaahay maalin aan fiirin inay soo marto waan karaahiyeysanaysaa. maxaa yeelay isagaa is sheegay oo qalbigiisa daahir ahaa radiallahu canhu wa ardaah. cuthmaan bin cafaan radiallahu canhu waxaa la dilay isagoo kitaabka qur-aanka ah uu dhabtiisa saaran yahay, yacni si ihtimaam u siinayey ilaa aakhirkii marka la dilayay. cuthmaan radiallahu u tegi doonaa marka la dilaye kitaabka dhabtiisa saaran baa cuthmaan la dilay radiallahu canhu wa ardaah. yacni nin muslimiinta oo dhan amiir u ah oo qur-aankii ku tukanaya oo akhrinaya oo jecel, haddana kama zuulin aakhirka xayaatadiisa in isagii qur-aankii isu akhrin la dilo. arrintuna waxaa weeye qof walba waxa uu ku nool yahay baa loogu khatimaa camalkiisa. qofkii qur-aan akhrin jiray ama sujuudi jiray ama sadaqo badnaa waxaa loogu khatimayaa isagoo khayrkaa ku jira. qofkii bad kale iyo meelo kale ku jirayna waxaa loogu khatimaa sida oo kale. xilligii cuthmaan radiallahu canhu wa ardaah marka la fiiriyo suhdigiisa iyo suu taajirka u ahaa radiallahu canhu wa ardaah, haddana cuthmaan radiallahu canhu wa ardaah suhdi baa lagu yaqaanay. waxa uu leeyahay xasan albasri waxaan arkay cuthmaan bin cafaan xilligiisii nin dadka u yeedhaya oo waxaa ku leeyahay wadadii ho kaalaya soo urura, kaalaya qaata xoolihiinnii,
xoolihii muslimiintu uu qaybinaya cusmaan bin cafaan lianna xilliga cusmaan waxaa la sheegaa xilligii muslimiintu ugu xoolo badnaayeen inuu ahaa radiallahu canhu wa ardaah markaasaa waxau leeyahy xasan albasri nin baa qaylinaya dadku u yeedhaya kaalaya xoolihiinni qaata kaalaya xaqiinni qaata muslimiinta waxaa loo qaybinayaa baytulmaalkii markaasi dadku intay soo kal lahaan baa waxay qaadan jireen xoolihiisii oo dhammaystiran wuxuu leeyahy cusmaan xasan albasri radiallahu canhu wa ardaah wuxuu odhan jiray cusmaan kaalaya qaata dharkiinna iyo dahabkiinna iyo kaalaya qaata subagiinna iyo malabkiinna iyo kaalaya qaata waxa uu leeyahay xasan albasri arsaaqda xilliga cusmaan bin cafaan waxay ahayd wax tiro badan oo joogta oon kala go-in bay ahayd barwaaqada la gaadhay aad bay u talo badnay radiallahu canhu wa ardaah cusmaan bin cafaan radiallahu canhu wa ardaah waxaa laga wariyaa inuu aad uga cabsan jiray qabriga oo markuu qabri arko aad buu u hoyi jiray radiallahu canhu wa ardaah dadan saxaabada waxay ku odhan jireen cusmaanow marka naarta laga sheekeeyey iyo cadaabka ma oydid laakiin marka qabriga laga sheekeeyey waad oydaa maxay ku dhacday markaasuu wuxuu leeyahy cusmaan radiallahu canhu wa ardaah waxaan maqlay nebiga oo dhahaya calayhi salaatu wassalaam ma aanan arkin wax la arko oo ka welwel badan qabriga ma aanan arkin buu leeyahay ama xadiis kale wuxuu leeyahay nebiga waxaan ka maqlay oo dhahaya calayhi salaatu wassalaam meesha ugu horeysa ee aakhiro la degayo waa qabriga ugu horeeya awalu manzil naasil aakhira waa qabriga qofkii qabriga ku toosa oo ku liibaana waxa ka dambeeyana way soo fududaanayaan qofkii qabrigan wax kala kulminna waxa ka dambe ka adkaanayaan marka maxaan ba isla gaadhnaa cusmaan wuxuu leeyahay radiallahu canhu wa ardaa maxaan isla gaadhnaa naar iyo cadaab meeshii lagu kala baxay waa qabrigii marka inuu ooyo waxaa keenay cusmaan fahamka uu fahmay meesha cadaabku ka bilaamo ama nimcadu ka bilaamato waa qofka qabriga marka la geliyo marka lagu keeno oo godka lagu geliyo baa wax kaaga bilaabanaya wanaag iyo khayr ama waxaa kaaga bilaabanaya caro iyo cadaab sidaasaa keenta marka cusmaan radiallahu canhu wa ardaah in uu aada uga welwelo qabriga cusmaan aad buu cadaalad badnaa waxaa sugan radiallahu canhu wa ardaah maalin maalmaha ka mid ah inuu ka caraysiiyey nin raggiisii shaqaalaha ka mid ahaa markaasuu cusmaan dhegta maroojiyey radiallahu canhu wa ardaah ninkii dhegta maroojiyey kabacdi cusmaan intuu markiiba baraarugay oo soo orday buu u yeedhay markaasuu xukiyey dhegta imarooji bal waxaad sawirataan walaalayaal nin amiiruulmu'miniina oo muslimiinta oo dhan amiir u ah oo nebiga sodog u ahaa calayhi salaatu wassalaam oo ahlu janno ahaa meesha uu gaadhsiisan yahay yaa gaadhi kara wiil yaroo u shaqaynayey buu dhegta maroojiyey cusmaan radiallahu canhu wa ardaah markaasuu wuxuu ku yidhi intuu cusmaan aada uga qomeeyey nin yahow dhegta imarooji intuu dhegta u dhiibay markaasuu wuxuu ku yidhi wiil yahow igu adkee dhegta maroojinteeda in maanta aada iga aargoosato baa iiga daran aakhira in iga aargoosate yacnii markaan leenahay walaalayaal saxaabada nebiga in lagu daydo weeye dad aakhiray ahaayeen ninkan dhan oo jannada loogu bishaareeyey 4 goor iyo kama janno loogu bishaareeyey oo haddana ka welwelaya aakhiro wiil dhegta uu maroojiyey inagu maalintii dulmi intee lag baynu galnaa intee baynu dad xamanaa intee baynu xoolo dulmi ku qaadanaa intee dadku xadgudubnaa qabiilkooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda iyo guryahooda oo haddana aysan waxba aynu ahayn yacni duruustan walaalayaal waxaan u akhrinaynaa saxaabada duruustooda in aynu ku cibro qaadano aynu ku dayano runtii waa dayasho nin muslimiinta mas-uul u ah oo hal qofo oo qoorta dhegta u qabtay ka qoomamaynaya waxaa ka badbaadaya xoolahoodii waxaa ka badbaadaya cirdigoodii waxaa ka badbaadaya arrimahoodii kale waxayna tusinaysaa in muslimiinta iyo bini aadamkuba ay naga badbaadaan oo ayna wax dhibaataa u geysan ayayna tusinaysaa cusmaan bin cafaan radiallahu canhu wa ardaah arrinta uu sameeyey waxa uu leeyahay raxmadiisa iyo qaabka u naxariista badnaa cusmaan bin cafaan curwa ibnu zubayr waxa uu leeyahay waxaan soo gaadhay waqtigii cusmaan bin cafaan radiallahu canhu wa ardaah oo qof kasta oo muslima xoolo uu ku lahaa baytulmaalka inuu ka qaato
bal waxaan soo gaarnay buu leeyahay cuthmaan bin cafaan radiallahu canhu wa ardaah oo imaamkii uu aqimayo salaadii khudbada uu adimayo oo dadka wareysanaya xaalkooda iyo sida uu yahay ganacsigooda iyo xanuunkooda sida uu yahay iyo yacni naxariista uu xambaarsanaa radiallahu canhu wa ardaah iyo si uga weli jiray ayay tusinaysaa. cuthmaan radiallahu canhu wa ardaah ninka intaasoo fadliga lahaa dad magac muslim sheeganaya baa dilay. cumar bay dileen isaga ka horeeyey, cuthmaan bay dileen, cali bay dileen, dad magac muslim sheeganayaa dilay. waxaad marka garanaysaa adduunku inuusan qiimo lahayn oo ninkii intaasoo fadliga lahaa in qof muslim sheeganaya uu dilo waxaad garanaysaa dhibta ay leedahay. walidaalika cuthmaan markii lasoo hareereeyey muddaa la hareerey in la doonayey saxaabada nebiga intay kulmeen bay cismaan u tageen inay difaacaan. markaasaa cuthmaan wuxuu ku yidhi niman yahow ninkiina igu fiican aniga maanta waa ninka faraha kala baxa dhiigan iyo dagaalkan. hadda ogow waa amiir muminiin, waa nebiga wiilku sodoga u ahaa, waa ahlu janno, waa ninka muslimiinta wax u tareeyey baa in la dilo la doonayaa. markaasuu wuxuu leeyahay aniga daraaddeed dhiigiisan ku daadan kuwa idifaacayow la noqda seefihiinna iyo wixiinna buu leeyahay. abu hurayra wuxuu leeyahay waxaan u imi anoo labisan oo hubkii gashan cuthmaan saan u difaaco. markaasuu wuxuu ku yidhi abu hurayrow ilaah baan ku dhaartaye in aad hal qof disho adoo aniga idifaacaya waxay la mid tahay dadka oo dhan dilay. yacni waxaan ka hadlaynaa cuthmaan radiallahu canhu wa ardaah oo fadli fara badan lahaa baa haddana wuxuu leeyahay weliba in la difaacana xaqa ay ahayd, haddana wuxuu leeyahay dhiig daraaddii loo daadin maayo. maxaad u malaynaysaa maanta sida loo fududaystay dadka muslimiinta dhiigooda iyo qofka in la dilo ama qabiil ha lagu dilo ama qaab kale ha loo dilo, sifs in lagu dilo ama in lagu dilo maaragtay shirqoo lagu dilo. cuthmaanna wuxuu leeyahay aniga qofna lagu daadin maayo dhiig. bal waxaa laga wariyaa cali bni abi aalib radiallahu canhu wa ardaah inuu u diray wiilkiisa uu ku yidhi u tag oo u sheeg amiir muminiin inaan u imi in aan difaacayo. markaasuu wuxuu ku yidhi diyaar uma ihi inuu idifaaco, diyaar uma ihi u sheeg. yani saxaabada nebigu wuxuu ka diiday radiallahu canhu wa ardaah inay difaacaan. waxaa laga wariyaa naafic yani cumar wuxuu ka wariyaa cuthmaan bin cafaan radiallahu canhu inuu dadka ugu sheekeeyey maalinta la dili doono habeenkii ka horeeyey xalay hurdaan seexday waxaan ku riyooday nebiga calayhi salaatu wassalaam oo dhahaya cismaanow beri waxaa ku soo afurtaa agtayda ka soo afur. dabeedna cismaan wuxuu waabariistay isagoo sooman, maalintii oo soomanaa baana la dilay. sidaas baana cuthmaan radiallahu canhu hadda lagu oofsaday. dhiiggii ka dareerana waataan sheegnay kitaabkii qur-aanka dhabta u saarnaa. dhiiggii wuxuu ku dhacay aayadda alla uu leeyahay fasayakfiikahum allah wahuwa asamiicu alcaliim. ilaahay baa kaaga fillaan doona. cuthmaanow waxa ay sameeyeen allaha wax maqlee wax arka. sidaasaa naftii cismaanna ku baxday. intaasaan kusoo kubana darsigeennii. wasali allahuma calaa maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam.